bismillaahi raxmaani raxiim sanad wanaagsan ku soo dhowaada warka dahor ee kulmiye qaramada midoobay oo dowladda Soomaaliya ka dalbatay in jawaab ay ka bixiso sababta loo xiray Mukhtaar Roobo Cali beesha caalamka oo taageerada kala laabanaysa booliska koonfur galbeed Soomaaliya dowladda Soomaaliya oo sanadka maanta bilowday looga fadhiyo ka gudubka caqabado siyaasadeed iyo kuwa amni wada moota bajaajo goordhow lagu dilay deegaanka Weedow ee ka tirsan gobolka Banaadir maamulka Hirshabeelle oo odayaal dhaqameed ku xirxiray degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe golaha wakiilada cusub ee baarlamaanka maamul goboleedka Puntland oo gudoomiye kumeel gaar ah doortay madaxweynaha Suudaan oo ballan qaaday horumar dhaqaale iyo xuutiyiinta Yemen oo lagu eedeeyay in ay leexsadeen cunooyin gargaar Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa imikana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran wadajir waxaa idinkugu waramaya duhurkan maxamed shuuriye nuur iyo anigu xawluul cubeyd warka waxaa soo saaray maxamed cali maxamed taariikhduna waa 1 bisha koobaad sanada 2019 qaramada midoobay ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbatay inay jawaab ka bixiso sababta loo xiray Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur dhanka kale beesha caalamka ayaa taageerada kala laabatay booliska koonfur galbeed Soomaaliya amaba sheegtay inay kala laabanayso sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena Maxamed Axmed Tuuriyare wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa qoraal dheer oo soo saaray waxa uu uga hadlay arrimo ku saabsan xariga Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur iyo habdhaqankii ciidamada ammaanka xilliga ay socdeen mudaharaadadii ka dhacay magaalada Baydhabo warqadda qaramada midoobay ayaa waxa ay ku qotontaa dhacdooyinkii Baydhabo ka dhacay 13, 14 iyo 15 bishii Diseembar ee sanadkii hore xilligaas oo diyaar garowga doorashadii uu ku soo baxay Cabdicasiis Xasan Maxamed ay ka socotay magaalada Baydhabo Nicholas Haysom ayaa qoraalkiisa waxa uu ku bilaabay in sababta uu qoray ay tahay saameynta ka soo laabatay ciidamo ay taageerto qaramada midoobay oo ku lug lahaa xariga Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur 15 qof oo la dilay ugu yaraan 2 qof oo la dhaawacay iyo ku dhawaad 300 oo ruux oo la xiray in ka badan muddada sharcigu uu qabo ee ah 48 saac iyadoon wax eed ah lagu soo oogin waxa uu sidoo kale hordhaca qoraalkiisa uga hadlay taageerada qaramada midoobay ay siiso ciidanka jooga magaalada Baydhabo waxa uu sheegay in dharka 400 oo askari oo tababar ku jira iyo mushaaraadkooda marka ay qalin jabiyaan dhismaha saldhig booliis iyo 5 baro yaryar oo booliisku degaan 10 gaari iyo tababarka saraakiisha ay ka taageerto qaramada midoobay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya qaramada midoobay waxa ay sidoo kale taageero siisaa 100 askari oo ka mid ah militariga Soomaaliya ee howlgalka la fuliyo AMISOM iyo 453 askari oo ay siiyaan gunooyin kana tirsan militariga Soomaaliya oo jooga magaalada Baydhabo sida ku qoran warqadda Haysom waxa uu qoraalkiisa ku sheegay in ciidamada booliiska iyo militariga isugu jira ee jooga magaalada Baydhabo oo qaramada midoobay ay taageerada siiso ay tahay inay u hoggaansamaan sharciga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa uu sheegay in uu warqad ka helay midowga Yurub Jarmalka UK iyo UK taasi oo ku taariikhaysneyd 22 Diseembar ayna ku sheegeen inay joojinayaan taageerada ay siiyaan booliiska maamulka koonfur galbeed Soomaaliya sababtoo ah sidii ay u dhaqmeen xilligii doorashada Haysom waxa uu shaaca ka qaaday isaga oo xiganaya ila la isku hadlayn karo in ciidamada AMISOM ee jooga magaalada Baydhabo gaar ahaan kuwa Itoobiya ay ka qayb qaateen xarigii Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur isla markaana meeshii Mukhtaar lagu soo xiray ay joogeen taliyaha booliiska maamulka koonfur galbeed Soomaaliya General Mahad Cabdiraxmaan Aadan iyo agaasimaha nabad sugidda koonfur galbeed waxa xusid mudan in howlgalka AMISOM war uu soo saaray 15 Diseembar uu ku beeniyay inay ka qayb qaateen xariga Mukhtaar Roobo maruu ka hadlay warkii wasaaradda amniga gudaha ay ka soo saartay xariga Mukhtaar Roobo ee ay ku sheegtay inuusan wali u hoggaansamin shuruudihii hor yaalay ayaa waxa uu sheegay in haddii ay sidaas tahay sharciga Soomaaliya ay ku tahay dambi culus wakiilku waxa uu si kulul uga hadlay habdhaqankii ciidanka booliiska Soomaaliya ee keenay inay dhintaan dad gaaraya 15 ruux isla markaana la xiro dad ku dhow 300 oo sheegay inay caruur u badnaayeen waxa uu soo jeediyay su'aalo badan oo dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay ka jawaabto muxuu yahay sharciga lagu saleeyay xariga Mukhtaar Roobo ciidamadee ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya ee xariga fuliyay iyo haddii taageero laga helay ama laga dalbaday AMISOM ama Itoobiya
maxay ahaayeen shuruudaha mukhtaar roobow cafiskiisii lagu xidhay ee ay ahayd inuu u hoggaansamo maxay yihiin tallaabooyinka la qaaday si uu u sii xirnaado mukhtaar roobow wax ka badan 48 saac ee sharcigu qabo su'aalaha kale ee haysom uu soo jeediyey ayaa waxa ay ku saabsanaayeen dadkii lagu dilay magaalada baydhabo 13 14 iyo 15 Diseembar waxaana ka mid ahaa ficil nuuce ah ayaa la qaaday si loo baaro geeridii ka dhalatay mudaharaadyadii ka dhacay magaalada baydhabo 13 ilaa 15 Diseembar ciidamadee ayaa ka jawaabay mudaharaadyada baydhabo warqadda wakiilka qaramada midoobay waxay ku socotaa wasaaradda amniga Soomaaliya waxaana sidoo kale helay wasaaradda gaashaandhigga wasaaradaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dawladda federaalka ah iyo koonfur galbeed iyo taliska booliiska ee dawladda federaalka ah iyo maamulka koonfur galbeed jawaabta waxaa looga fadhiyaa dawladda Soomaaliya oo in ay jawaabto ay lagama maarmaan tahay sababtoo ah waxay ku tiirsan tahay taageerada qaramada midoobay dowladda Soomaaliya ayaa sanadka maanta bilowday waxaa looga fadhiyaa ka gudubka caqabado siyaasadeed iyo kuwa amni iyadoo la sheegay in sanadkii dhamaaday 2018 laga gaabiyay wax ka qabashada caqabadahaas Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa warkan faafahinaya dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ayaa dusha ka sii eegaysa sanadkii labaad ee ay talada dalka hayso sanadka 2019 waxaa golayaasha dowladda looga fadhiyaa ka gudubka caqabado shaqo oo hor yaala oo sanadka midkan xiga uu noqonayo u diyaargarow doorasho golayaasha fulinta sharci dejinta iyo garsoorka ayaana laga sugayaa shaqo ay ugu horeyso amniga uguna yar tahay meelmarinta sharciyo dalkan muhiim u ah 2017 waxaa laga soo gudbay howlo badan oo loo baahnaa kuwa oo aan qabsoomin uguna horeeyaan khilaaf hareeyay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe amniga oo in badan la rumaysan yahay in aan waxba laga qaban marka loo fiiriyo deegaanada ay shabaab haystaan iyo weerarada qaraxyada iyo dilalka ah ee ay shabaab iyo Daesh ka fuliyaan magaalooyin ay Muqdisho ugu horeyso si la mid ah dastuurka ayaa la aaminsan yahay in sanadkii tagay waxba ka suurta gelin marka loo barbardhigo howlaha in dastuurka laga qabto ay ahayd waxa uu sanadkan yahay xuduntii waxqabadka dawladda xilligan ee Soomaaliya waana halka sidoo kale go'aamin doonta inay ku guuleysteen ama ku guuldareysteen wax ka qabadka arrimaha taagnaa ulina taagan badi amniga ayaa ah mid ka mudan ahmiyadda ugu horeyso sida dad badan oo khubaro ah sheegaan waxaana looga fadhiyaa siyaasad militari oo ay kula wareegto gobollo degmooyin iyo deegaano ay shabaab haystaan waa in ay dawladdu ogaataa in shacab badan go'doon ugu jiraan al-shabaab oo haysta meelo ay joogaan qaarna wadooyin ay ka heli lahaayeen waxyaabaha nolosha laga maarmaanka u xiray magaalada marka ee Shabeellaha Hoose oo dhawaan ay dawladda la wareegtay ayaa ka mid ah meelaha shabaab go'doonka ugu jira waalidiin badan ayaa sidoo kale caruurtooda xog looga kaxaystay waxayna sugayaan dawladda magaalooyin ay Muqdisho ugu horeyso ayaa dhibano joogto ah u noqday amni xumida jirta waxaa dhacay Muqdisho waxaa ka dhacay sanadkii hore 13 qarax oo gawaari loo adeegsaday iyo kuwa kale oo intaa ka badan oo ahaa miinooyin dhul lagu aasay iyo sidoo kale qaraxyo shakhsiyaad gaadiidkooda loogu xiray dilal aan tirakoob lahayn ayaa sidoo kale dad badan Muqdisho loogu geystay amniga marka laga soo gudbo siyaasadda ayaa ah tiirka labaad ee ah in la helo xasilooni siyaasadeed kana qayb qaadan karta amni buuxa oo la helo wada shaqayn iyo isfaham dhexmara madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhexe ayaa u horeeya iyo sidoo kale wada shaqayn khilaaf ka maran yahay oo dhexmara golayaasha sharci dejinta iyo fulinta sidoo kale sanadkan waxyaabaha dawladda hor yaalla ayaa la tilmaamaa in dastuurka oo weli qabiyo ah sidoo kalena xaaladaha kale aan horey uga soo hadalnay qayb muhiim ah ku leh waxaana loo baahan yahay in la dhammeeyo la tashiyada laga samaynayo dastuurka lana marsiiyo afti dadweyne sida dad badan oo dastuurka ku xeel dheer ay sheegaan cadaaladda ayaa ka mid ah oo garsoorka dalka uu noqdo mid aysan dadku ka caban sida madaxda horey u ballan qaadeen golaha sharci dejinta ayaa looga fadhiyaa sanadkan inuu noqdo mid ka duwan kuwii hore oo sharciyo muhiim ah looga fadhiyo waxaana sharciyada la sheego in baahida badan loo qabo uu ka mid yahay ama ka mid ah midka la dagaalanka argagixisada iyo kuwa kale dalkana u leh anfac dawladnimo dawladda waxaa looga fadhiyaa in ay arrimahaasi oo idil sanadkan xaqiijiso shacabkuna waa sugayaal saxaafadduna waxa ay la socon sida uu sanadkan 2019 ee maanta bilowday ku dhammaado aad buu mahadsan yahay waryaheena Cabdiqani Cabdullaahi Maxamed iyo faaladii ku saabsaneed dawladda Soomaaliya oo sanadka maanta bilowday looga fadhiyo ka gudubka caqabad siyaasadeed iyo kuwa amni oo dalka muddo uu ku soo jiray dhanka kalena wada mooto bajaaj ayaa goordhow lagu dilay deegaanka Weedow ee gobolkan Banaadir
nin hubeysan oo caan ka ah deegaanka kilomitir 13 ee duleedka magaalada muqdisho oo lagu magacaabo cabdulqaadir ibraahim cadow ayaa maanta dilay allah u naxariistay carab sida oo ahaa bajaajle ka shaqeeya deegaanada duleedka muqdisho. ninka dilka geystay oo ka mid ahaa maleeshiya hubeysan oo deegaanka ku sugan markoodii horena ahaa dadka deegaanka ee loo yaqaano goofleyda ayaa horey lugaha uga dhaawacay aabihiis ibraahim cadow. ninkan ayaa aabihiis ka dhigay naafo waxaana uu ka jebiyey lugaha sida dadka deegaanka ay u xaqiijiyeen keeneen. muran dhex maray marxuumka dhintay iyo ninkii hubeysnaa ayaa sababay in rasaas uu ku furo marxuumka. ma jirta cid soo qabatay ninkii hubeysnaa ee dilka geystay. wariyaha idaacadda kulmiye ee gobolka shabeellaha dhexe yuusuf abuubakar ibraahim waxa uu kusoo waramayaa in maamulka hirshabeelle ay odayaal dhaqameed ku xirxireen degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe. wararka ka imaanaya deegaanka gumurow oo hoostaga degmada raagaceelle ee gobolkan shabeellaha dhexe islamarkaana ay ku sugnaayeen wafdi xildhibaano ah iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo heshiis ka dhex waday beela halkaa ku dagaalamay ayaa sheegaya in lagu guuldaraysay nabadayntii laga dhex waday dhinacyada dirirtu ay dhex martay ee halkaasi wada dega. wararku waxay intaa ku darayaan in gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan uu saldhigga degmada warshiiq u soo xirxiray odayaasha labada dhinac ee colaadda ay u dhexayso kadib markii lagu kala istaagay wadahadalkii ugu dambeeyey ee nabadda loogu raadinayay dhinacyadan. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa idaacadda kulmiye u xaqiijiyey xarigga odayaasha waxaana ay sheegeen in maamulka uu go'aansaday tallaabadan kadib markii odayaasha ay ka cagajiideen inay saxiixaan heshiis lagu soo afjarayo colaadda labada beel si looga baaqsado dagaallo kale oo dhex mara labada dhinac. waxaa hadda soconaya kulamo kale oo mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo xildhibaanada hirshabeelle ka tirsan ay qaadanayaan iyagoo kaga arrinsanaya tallaabada xigta ee la qaadayo si loo dhammeeyo colaadda. gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaa ku adkaysanaya inuusan ogolaanayn sii socoshada colaadan oo muddo soo jiitamaysay. haddii waanwaan ay wax ku socon waayaanna waxa uu gudoomiyuhu sheegay in maamulka uu qaadanayo tallaabo kasta oo u arko inay joojinayso colaadan. colaadda labadan beel u dhexaysa ayaa soo jiitamaysay muddo dheer waxaana ay salka ku haysaa dhulbeereed ku yaala deegaanka gumurow ee degmada raagaceelle. yuusuf abuubakar keenan shabeellaha dhexe. golaha wakiilada cusub ee baarlamaanka maamul goboleedka puntland ayaa gudoomiye kumeel gaar ah doortay sida uu soo warinayo cumar maxamed soomane. xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada maamulka puntland oo shalay lagaga dhawaaqay magaalada garowe ee xarunta maamulkaasi ayaa maanta lagu dhaariyey xarunta golaha wakiilada ee magaalada garowe sida idaacadda kulmiye ay u xaqiijiyeen qaar ka mida dadka goobjoogayaasha ah ee ku sugan magaaladaasi. xubnahan ayaa waxay gudoomiye kumeel gaar ah ay u doorteen xildhibaan xuseen yaasiin xaaji diiriye oo ah xilligan ninka ugu da-da weyn xildhibaanada baarlamanka maamulka puntland waxaana xilka gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee golaha wakiilada uu sii hayn doonaa ilaa inta mudanayaasha baarlamanku ay kasoo dooranayaan gudoomiyaha rasmiga ah ee baarlamanka maamulka puntland. golahan ayaa ka kooban 65 xubnood oo ragga iyadoo hal gabarna ay ku jirto waxaana 49 mudane oo golaha wakiilada ka mid ay yihiin wajiyo cusub oo baarlamanka ku soo biiray halka 17 kalena ay ka mid yihiin xubnihii baarlamanka puntland oo soo laabtay. mas-uuliyiin kala duwan oo ka hadashay goobta lagu dhaarinayay xildhibaanadan ayaa baarlamanka kula dardaarmay in aysan ka been sheegin kitaabka qur-aanka kariimka ay ku dhaarteen islamarkaana ay adkeeyaan ammaanada loo dhiibtay. golahan ayaa si adag looga digay in ay laaluush ku shaqeeyaan iyo in ay shilimaad ay ku iibsadaan masiirka ummadda reer puntland. dhaartan ayaa kadib xildhibaanada baarlamanka maamulka puntland waxa ay si toosa u gudagali doonaan ajandayaashooda rasmiga ah ee la xiriira doorashada gudoomiyaha baarlamanka, madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa. warka duhur ee raadiyo kulmiye ayaad la socotaan. wararka dibadda ayaa inoo soo socda. duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr jabuuti u doono. hay-adda cunnada adduunka ee WFP ayaa ku eedeysay fallaagada xuutiyiinta in ay leexsadeen cunnooyin gargaar oo loo siday dad ku nool goobaha ay maamulaan. baaritaan ay samaysay hay-adda ayaa lagu sheegay in dad ku nool caasimadda sanca aysan helin raashiinka gargaarka ee loogu talagalay.
falaagada xuutiyiinta ayaa ilaa wakhtigan wax jawaaba ka bixinin eedeymaha cusub ee loo soo jeediyey xilli ay horey u beeniyeen inaysan jirin wax raashiin gargaar ah oo ay leexsadeen. qaramada midoobey waxa ay sheegtay in 20 milyan oo ka mid ah dadka reer yemen ay haysato wakhtigan xaalad cuniyari ah, halka 10 milyan oo dadkaasi ka mid ahna aysan hubin helitaanka cunnada gelinka xiga. dagaalada yemen oo bilowday 5 sano ka hor ayaa ilaa wakhtigan waxaa ku dhintay 6,800 oo ruux, halka dad gaaraya 10,700 oo qofna ay ku dhaawacmeen sida laga soo xigtay qaramada midoobey. ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa ballan qaaday in sanadkan cusub ee 2019 dalka Suudaan uu gaarsiin doono horumar dhaqaale kadib dibadbaxyo ay dad badani ku dhinteen oo dalkaas ka dhacay. madaxweyne Bashaar al-Assad waa Cumar Xasan al-Bashiir oo ka hadlayay isku imaatin lagu weyneynayay sanad guuradii 63aad ee ka soo wareegtay markii dalka Suudaan uu qaatay xornimada, ayaa sheegay in miisaaniyadda sanadkan 2019 ay meel mariyeen baarlamaanka dalkaas ayna wax weyn ka tari doonto duruufaha dhaqaale ee dalkaasi ka jira. madaxweyne al-Bashiir ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa uu xiriiro dhaqaale la sameyn doono wadamada Shiinaha, Raashka iyo wadamo kale oo ku yaala gacanka Carabeed, kuwaas oo sida uu sheegay ka caawin doona horumarka dhaqaale ee uu hiigsanayo. gudana dhegeystayaal inta ayuu ku idilyahay warkii hore aad kala socoteen raadiyaha kulmiye. cidda uu sheegay waxay dib uga heli kartaa boggeena Facebook iyo sidoo kale website-keenna. dhegeystayaasheena ku sugan gobolka hiiraanna waxay naga dhegeysanayaan radio wadani oo xaruntiisu ay tahay magaalada beledweyne. dhegeystayaasheena ku sugan galgaduudna radio cadaado. dhegeystayaasheena gobolka mudugna waxay naga dhegeysanayaan radio hayaan. saaxiibadeena kale ee maraykankana kale FM tan iyo kulankeenna xiga amanaal.